qalalaasihii jowhar iyo qaybtii daafeed qaxi iyo dhibaatadii ma jiro ruux ka qayb qaatay mid waliba wuxuu soo qoray qaladka annagaa leh iyagaa dulmiga isku qiro cadowga u qidmeeya iyagaa walaalkood qabto u dabin u qoolaaya qodob loo adeegsada ma jiro qalad ninkii geysta mid waliba qumanihiisa qoorta loo suray qareen guudna lama haaya oo qaladka loo sheega mana jira nin quustoo dhaha talada iga qaada mid waliba in qalad loo suxuuquu dareeyaa qowshaar iyo qabaan loo noqdo qolo la hoos jooga qutulyoonka lagu raadiya qaabdarrada taagan ilaahow adaa qaban kara qaladka iyo muuqda qaluubtooda isu celi dadkan qolobo meel aaday nin qaraabadiisii dayacay qaran wax uma haayo khatar muuqataan laga hadleey qoyska gudihiisa qabashada xilkana waa rabaa qaas in laysiiyo waa waxaan isqaban karayn waxaad quudarayseen waxba yaan qob mooslayso dhigin hawaarna ma ogi talabaal idinku kari waaye quursi waa u qaybsateene qabrigiina naar ha qaacdo quursi waa u qaybsateene qabrigiina naar ha qaacdo quursi waa u qaybsateene qabrigiina naar ha qaacdo aamiin insha allah. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa abwaan siciid sheekh maxamed gaabane waxaan halkan ku duubayaa gabay la magac baxay xurnimo waa qaali waana kan dad qofilin haddaad qaa'ilisana hadal ma qaataan inkastoon sidaa qabo haddana weli ma quusanine qaar fiican in laga helaa waa qayaasaahe anqayaxa ujeeddada xumaan looma hela qiil qaaradda afrika waxaan nahay qoyska ugu fiican waxaan nahay qabiil qani ahoo qaalin geel haysta qubixaas idhiriyow dega qardha iyo goobaanla qaybaha kismaayaan degnaa qoraxsin beledweyne qalimow ilaa jowharaan qayb ku leenahay khayraadka iyo xoolahow eebba noo qaybay haddana waa qarribannahay ma ogi maalintan guusha qaban doono anqayaxa ujeeddada xumaan looma hela qiil nimayow qarniyo badan talada qayb ka noqon waay nimayow dhammaan kala ququban oon qowlka ku heshiinin nimayow qaraabada neceb oo cadowa qaymeeyo nimayow ninkii qaban lahaay qaladka talinaaya kayrkooda inuu dhaafi karo waa qayaasaahe anqayaxa ujeeddada xumaan looma hela qiil nimankan qoryaha iyo hilbaha caano laga qaata mudnaantana nin kale lagu qoro qalinka lagu duugo iyagana sidaas qaata oo qaladka guulmooda kayrkooda inuu dhaafi karo waa qayaasaahe anqayaxa ujeeddada xumaan looma hela qiil qalalaasihii jowhar iyo qaybtii daafeed qaxi iyo dhibaatadii ma jiro ruux ka qayb qaatay mid waliba wuxuu soo qoray qaladka annagaa leh iyagaa dulmiga isku qiro cadowga u qidmeeya iyagaa walaalkood qabto u dabin u qoolaaya qodob loo adeegsada ma jiro qalad ninkii geysta mid waliba qumanihiisa qoorta loo suray qareen guudna lama haaya oo qaladka loo sheega mana jira nin quustoo dhaha talada iga qaada mid waliba in qalad loo suxuuquu dareeyaa qowshaar iyo qabaan loo noqdo qolo la hoos jooga qutulyoonka lagu raadiya qaabdarrada taagan ilaahow adaa qaban kara qaladka iyo muuqda qaluubtooda isu celi dadkan qolobo meel aaday nin qaraabadiisii dayacay qaran wax uma haayo khatar muuqataan laga hadleey qoyska gudihiisa qabashada xilkana waa rabaa qaas in laysiiyo waa waxaan isqaban karayn waxaad quudarayseen waxba yaan qob mooslayso dhigin qabasho ma leh been quursi waa u qaybsateene qabrigiina naar ha qaacdo 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 aamiin insha allah.